sidee Gmail looga samaystaa taleefankaaga gacanta? Waa simple. Markii aad rabto inaad Gmail ka samaysid taleefankaaga gacanta, waxaad tagaysaa Gmail app. Gmail app waa kan idin muuqda. Waa qaybta sare Gmail ayaa ku qoran. App-kan ayaa waxaa loo yaqaanaa app-ka kore Gmail app. Haddii aad ka weysid uusan shaashada ku saarnayn, waxaad ka raadinaysaa app-iskaaga ayaa gudaha u galaysaa. waa ku arkaysaa halkaas ayuu ku jiraa, waa kan ugu sareeya. Okay, markii aad rabtid markii inaad Gmail samaysid, haddii aad ka weysid mobilekaaga app-iskaaga gudihiisa, Play Store-ka asigana waa laga helaa. waxaa ku qoraysaa Gmail, asiga ayaa ku soo bixi doona insha Allah. Okay, marka waxaan rabnaa inaan Gmail sameyno. waxaa app-ka Gmail ayaa ku dhufanaysaa Gmail app. markii aad ku dhufato wuxuu ku soo qaban doonaa Gmail-ka waqti xaadirkaas laga isticmaalayo mobilekaaga. qaybta sare waxaa ku soo muuqan doona sawirka saaran Gmail-kaaga ama xarafka uu ka bilowdo Gmail-kaaga haddii uusan sawir ku saarnayn. bal aan ku dhufan icon-ka kore oo geeska. waa ku dhuftay. maxaa ii soo baxay? boxkan ayuu ii soo furay. waxaa ka sii dooranayaa add another account. waxaa rabaa inaan account cusub sameeyo. waxaa ka dooranaya Google. wuxuuna geeyay halkan. markuu qaybtan markii aad tagtid qaybtan sare oo email and phone ku qoran tahay, qaybtan waxaa loogu talagalay dadka Gmail iyo hore u leh. dadka Gmail-ka hore u samaystay halkan ayay ka gali doonaan. halkan ayay ku qorayaan Gmail-ka marka aad samaysatid. balse anaga waxaan rabnaa Gmail ma haysanee, waxaan rabnaa Gmail cusub inaan sameyno. Create account ayaa ka dooranay qaybtan hoose, Create account. markii aad furtid waxaa ku soo bixi doona labadan option. labadan option maxaa waaye? waa for myself, aniga ayaa isticmaali doona, iyo to manage my business, waxaan u isticmaali doonaa ganacsi. labadaas mid ka mid ayaa dooranaysaa. aniga waxaan rabaa inaan aniga isticmaalo, for myself ayaa dooranaysaa. wuxuuna keenay qaybtan. muxuuna weydiinayaa magacaaga koowaad, first name iyo last name. first name-ka halkan aan gelino, waxaan ku baraadkeyn doonaa magacan Xasan ayaa ku qoray. qaybta kaleeta maxaa ku qoraa Jazeera askaga qoran. ma fahanti? waa first name iyo last name. magacaaga koowaad iyo magacaaga labaad saasaa u gelinay. nagasti ayaa dhahaynaa. nagasti markii aad dhahdid wuxuu ku geyn doonaa qaybtan. uu kugu weydiin doona taariikhda aad dhalatay. waxaa ka dooranaysaa bil iska geli. hadda adiga taariikhda dhalatay adiga ayaa taqaanid. waqtigaaga saxo. anaga hadda waxaan iska gelinaynaa 2000 aan iska gelina. ma fahanti? genderka doora female ma tahay mase male. nagasti ayaa dhahaynaa marka male ama female. markii asaan u dooratid wuxuu noo soo bandhigay choose your Gmail address. Gmail-kaaga dooro qaabka u rabtid. macnaha anaga hadda waxaan sameynay magac first name iyo last name ayaa u baxsanay. magacyadan waxaa suggestions uu ku soo jeedinayaa. masaana u rabtaa Xasan Jazeera 000 ma ka dhiganay 30@gmail.com mase Xasan mase Jazeera da soo hormaray Jazeera Xasan 137 ayaa ka dhiganay. labadaas waa banaan yihiin, waa dooro kartaa. Create your own Gmail address noo dhigi kartaa. ina adiga mid cusub ina abuuratid. mid cusub abuuranayna hadheena. ma fahanti? haye maxaa ka dhignaa marka Xasan Jazeera adhe marka 2020 nagasti ay adheena. nagasti markii aad dhahdid wuxuu ku geyn doonaa qaybta password-ka. qaybta password-ka maxaa waaye? waa password 8 god ayuu u baahan yahay. 8 god ayaa gelinaysaa oo lagu daray xarfo capital iyo small oo isku daraysaa, ama calaamadahana mid ka mid ah waa raacinaysaa. numberka password-ka aad soo gelisay iska xaqiiji inay islahaadaan ayaa loo baahan yahay. nagasti aa dhahaa. waxaa ogaataa magacaaga haddii uusan password-kaaga haddii uusan capital iyo small letters iyo numbers iskugu jira hadduusan ahayn, waxaa laga yaabaa inuu kaa diido. marka iska xaqiiji
meeshan wuxuuna weydiiyey telephone number haddii aad rabtid inaad ku samaysatid gmailkaaga teleefankaaga ayaa halkan gashanaysaa si hadhow passwordka haddii aad u ilaawdid ama aad rabtid passwordka inaad iska bedeshid oo forget dhahdid wuxuu hadhow code ayuu kugu soo diri doonaa mobilkaaga marka mobilka aad adiga leedahay oo aad isticmaasho gasho teleefanka numberka aad gelisay koodka kugu soo dhacay ayaa halkan laga rabaa waxaana waa yani hadda 398 eber 86 kadib maxaa dhahaa next waa ka suuqaata mujada review hadda uu diyaarsan yahay akoonkayga next ayaa iska dhehe kadib wuxuu ku weydiin doonaa terms waa kana I agree ayaa iska dhehe waa kan wuu dhameeyey hadda gmailkeenu waanu diyaarsan yahay balaan fiirino waa kana xasan jaziira 2020 qaybta hoose ayuu soo galay bal aan ku dhufano 2020 aan galno waa kasii dooranay wuu ifurmi doonaa hadda waa kan gmailkii aan sameynay oo 2020 ah ayaa ku jirnaa waa mahadsan tahay halkan ka fiiri qaybtan kore maxaa kugu muuqda jaziira 2020 waa gmailkii aan sameynay hadda kan hoose oo eber 6 waa mid hore u sameysnaay waa mahadsan tahay waxaan filayaa inaad fahantay oo laga bilaabo maanta adiga aad gacantaada ku sameysan doonto gmailkaaga kana sameysan doonto teleefankaaga waa mahadsan tahay